هذا بين كعي وحاك عيبو قبا قبل كان وقبل ده أمد بدن دقنتهاي وريق قبيلة لا يراهدو وانو كلا حلنا قيب وطها قيبنا موتو أنا غيرك يجود دود يوحى ما فرقينه لكن جود دي قبل كان وباهنين حتى إنه شعب كان هاي كي محارد كهاي كي محافظ كهابا أنا قاعد نور دارتي وسير لنا أضي كور دارتين لكن وسير كي قبل كو وسير كي قرشينتو تذكي وكل قرشي أفر باك هذي وحلي ثلاث سياسات باك هذي جيل سيتا أو هذي تمرنا صعد باك هذي أضينا السمير باك هذي يا أو هذي هرت أنت سنة دي الله بيلود بنو سمرني مول المدحويني قبلك نجد بدل الله بدها بلود با وحنو كعد صنعنا إن عد سيدك عد كي يقعق بشو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعده أمان مدحوينها قرنك iyo xukuumaddiisa iyo golaha baarlamaanka golayaasha deegaanka dhammaan iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay Ramadaan Kariim ilaahay baa mahad ilaahay inagoo muslimka inaga dhigay ee inoo soo galiyay itraafkii isugu keenay iyo soonkiiba ilaahaas mahad leh waxaan ka hadlayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa dhagaxaaga masaajid dhigo dhawaaqaagana sumadu yeelo horta mudane madaxweyne maanta caawa dhawaaqaygan sumadu yeelaya waxaan ugu yeelayaa waxa la yiraahdaa habeen kacay waxa kiciyay buu qaba gobolkan waa gobol de umad badan degantahay oo reer gabiilay la yiraahdo reer gabiilay markaa wasiirka aad magacawda waxa uu awood badan leh wasiirka gobolka ayaa horta mas'uulka gobolka saano anagu macal xukuumadii hore ku naqaanay wasiirkii gobolka waa in loo sinaado oo cuqaashi gobolka wali lama dhisin horena waan uga hadlay cuqaashi gobolka lama dhisin annagoo aan beesheeda aan walaalahay Jibril Abukor ee shirtay iyadu gudida samaysatay ma haysano waan u mahadnaqaynaa iyaga wax xumaanoona dhex yaalaana ma jiro laakiin wasiirkii gobolku wasiirkii qorsheyntu dadkii uu kala qorsheeyay inba meel buu ku xilayo halkii uu qaranka uga qorsheyn lahaa dadkii uu mudane madaxweyne reer gabilay uu kala qorsheeyay inta wasiirka aad noo magacawday maalin kaliya maad aragtay adaan ku maragashanayaaye iyadoo cuqaashi gobolka la shiraysa inta shiree ay gabilay ku qabatay bal dib u raac maanta wax walba waa dhugmantii wasiirka gobolka si dadban iyo si hoose waanu la hadalay wasiirkii dadkii uu kala qorsheeyay waanu kala xilanahay qayb uu wataa qaybna ma wato anagu reerka iyo gudidooda iyo waxa ma fargelino laakiin gudidii gobolkan u baahnayn gudidii gobolka waa laga tagay gudidaas gudibay iyadu markaa wasiirkaasi samaysay gudidaasina annaga wax ceeb xaqeey kama he annagu iyada ayaanu adu maadaamood noo magacawday mudane madaxweyne midna waa ku sheegaya hilaabiyihiisu cadaystaa baa leeyahay mudane madaxweyne maanta waxay wax ka dhaxeeyaan waa shacabka waa bulshada codaysa ama macaarad ha ahaadaan ama maxaafid ha ahaadaan iyo cidda loo codeeyay ee xukuumad ee loo dhaariyay haddaanu shacabka nahay kii maxaaridka iyo kii maxaafidka haba annaga adaan noo dhaartay wasiiradana aday ku dhaarteen mudane madaxweyne annaga wasiiradu nooma dhaaran wasiiradu waa shaqaalahaagii waxaan ku cadaynayaa waxa inaga dhaxeeya ee madaxweynaha iyo bulshada wax ka dhaxeeyaan wax kalsoonidii baad haysaa hantidayadii baad haysaa sharaftayadii baad haysaa cidda aad diratayna waa cidda xoolaha markaad miyigii markaan dib ugu noqono xoolaha de odayga leh caruurta eegta de waxay eegeen xoolo laakiin iyagu male mudane madaxweyne waxa ay wax ka dhaxeeyaan waa bulshada iyo adiga annaga adaa noo dhaartay wixii dadka adigu aad dhaarisay ay qalloociyaan markaan ku dhahna halkaasi dacwadii waxbay ka cuntay halkaa waxbay iyo baktiisatay de annaga yeena annaga power nagu yeelane naga bedel markaa maadaama ay bulshada iyo adiga wax ka dhaxeeyaan maadaama adigu aad ahli noo qaatood noo dhaaratay oo bulshadii aanu nahay adigu waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne dadka wasiiradaas yeena kala dilin todobada dambe waanu ku abaal gudi doonaa horaan kuugu ballan qaadnay hadday wax yar murugocdeen hadday wax jireen markaa mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay yaan layna kala dilin wasiiradaasi todobada dambe la dagaalamayaan wasiirada naga bedel mudane madaxweyne gobolka gabilay
waxa weeyaan waa gobol taariikhiya ummad dhan baa degan dadku waa gob mudane madaxweyne waxaan ku cadaynayaa gobolka Gabiley maanta haddii markii hore wax ay ka baydeen maanta kaama baydayaan laakiin dadka adiga ku shaqeynaya inayna kala dilin naga qaba cidii annaga dib nagu haysay annaga xorriyadda qowlka la dagaalamaysa naga qabo adiga oo berri baahan ayaanu siyaasigu markuu madaxweynuhu ka qaban waayo dadku dirtay bulshadu way aarsataa waxay ka aarsataa marka dambe ay muddadii ka dhamaato mudane madaxweyne si muddada dambana aanu si fiican oo annaguna aanu smaydno oo aanu codkii ugu weyn aanu ku amba bixino naga bedel mudane madaxweyne gobolkan Gabiley wuxuu noqday markaad eegto wuxuu noqday banaadir oo kale dumarka iyagiiba banaanka ku umulaya waxa wasiirka qorsheyntu ma sheegayo wasiirka caafimaadka aniga wasiirka xigeenka caafimaadka aniga matala gobolka caafimaadka isaga ugu sareeyay marka wax la baarayo marka wax la jiingad yar laga jarayo caafimaadka uu soo carraayo way ka jartaa caruurta tiktokarada ay wadataa inantii halka ku umushay may iman iyada ugu sareysay gobolka maadaama gobolka matalaysay wasiir ku xigeenku may iman mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay afar baa ka hadhay waxa la yidhi tala siyaasad baa ka hadhay geel la seetaa u hadhay dumarna socod baa ka hadhay odayna samir baa ka hadhay iyo u hadhay horta intii sanad iyo 2 bilood baanu samreynay madaxweyne odayga samir ku hadhay baan nahay dumarna socod baa ka hadhay baa la yidhi socodka dumarka waanu karahnay naga fadhiis madaxweyne gobolka naga bedel labada habloodba waxaanu ka codsanaynaa in aad si degdeg codkayga u aqbasho oo aad wasiir ummadda isku wada oo ummadda aan kala wadin aan kala qorsheeyna isku qorsheeya marka caafimaadka wax ka dhacaan ku yimaada waa inaad noo magacowdaa mudane madaxweyne haddii kale inaad gobolka Gabiley wuxuu u qaadanayaa inaad ka aarsanayso aad iyo aad baan kugu mahadnaqanaa mudane madaxweyne naga fadhiisi dumarka waxaan u baahanahay in isku wada gobolka ayaan u baahanahay waxa aad noo magacowday waa wada u la qaata male hal mid baa dhaami jiray oo meesha joogi jiray cadaalad baad samaysay laakiin sidee annagu ma arkana cadaaladii xaqii hoose way ka maranta waxa la yidhi madaxweyne waxaan ku soo gaabinayaa anigoo Caaqil Axmed Cabdirashiid waan ku salaamay waxa la yidhi dibiga faarso habeenkii wuxuu maqlayay indhihiisu aroorta ma maqlaan indhihiisu aroorta ma arkaan habeenkii wuxuu maqlaa baa dibigu tiyo leeyahay looda waa la soo waraabinaya aroorta waa loodii way oo manayda waa la aroorinaya dibigu loodu ka mid yahay isagoo sidaa aaminsan baa marka aroorta darka la tago baa sanka lagu dhuftaayo waxa la yiraahdo irmaanka soo daa dibigii marka uu yaabay oo wuxuu yidhi wixii ay dhagahaygu xalay maqlayeen dhahayga ma arkayaan mudane madaxweyne hanagaga dhigin sidaaye sanka ragga ku dhufan marka ragga soo daa oo gobolka rag u magacow baan ku leeyahay wasalaam